السلام عليكم موضوعنا maanta waxa uu ku saabsan yahay Australia waxaana laga yaabaa markaad maqasho magacan in ay niyadaada ku soo dhacday arrinkan Because camels have been roaming the outback since the 1840s, they're sure-footed. mowduucan kuma saabsana maxay Australia u leynaysaa geela laakiin waxaynu ku eegaynaa xogaha juqraafiyadeed ee nooga daahsan Australia aynu ku bilowna calanka Australia waxaa la sameeyay 1901dii waxaana ku xardhan saddex astaamood oo ku yaala gudaha midabka buluuga astaantan waxaa loo yaqaanaa Union Jack waxayna tilmaamaysaa taariikhda fog Australia ay la leedahay boqortooyada Ingiriiska halka xiddigtan ka kooban 7 fallaarood ay leedahay laba macne macnaha koowaad waa in Australia ka mid tahay ururka barwaaqa sooranka macnaha labaadna waa 6 gobol ee Australia ay ka kooban tahay sidoo kale shantan xidigood ee ku yaala dhinaca midigta waxay tilmaamayaan halka ay dhacdo Australia oo ah cirifka koonfureed ee qaaradaha adduunka Australia waxaa si rasmi ah loogu yeeraa Commonwealth of Australia oo noqonaysa ururka barwaaqa sooranka oo ay ku mideysan yihiin dalalka uu gumeystay Ingiriisku Australia waxay dhacdaa koonfur bari qaaradda Aasiya gaar ahaan inta u dhaxaysa badweynta Pacifiga iyo badweynta Hindiya waana qaaradii jasiirad gooni ah yacni ma laha sohdin dhuleed waxaana dalal ahaan ugu dhow New Zealand oo dhanka koonfur bari ka xigta Papua New Guinea oo waqooyi ah iyo Indonesia oo waqooyi galbeed kaga beegan Australia waxay ku fadhidaa bad gaaraya 7,686,000 oo kiiloomitir oo laba jibaaran waana mid ka mid ah dalalka leh agdhuleedka aadka u ballaaran sidaasna waxay kaalinta lixaad kaga jirtaa wadamada ugu waaweyn adduunka dhinaca badka marka loo eego badanaa dhulka Australia waa saxaro qiiqaya waxayna reer Australia ku nool yihiin xeebaha halka dad yar ay ku nool yihiin gobolada dhaca bartamaha Australia buurta ugu sareysa Australia waxaa lagu magacaabaa Kosciuszko waxayna gaartaa cabir dhan 2228 mitir waxaa ka jira Australia kaymo ku tirsan xeebaha Pacifiga ilaa laga soo gaarayo Queensland xayawaanada ay ku faantay Australia waxaa ka mid ah xayawaankan lagu magacaabo kangaroo iyo xayawaano kale oo lagu arkay Australia oo kaliya magaca xayawaankan ee kangaroo waxa uu leeyahay magac bixin qosol ah waana erey ka mid ah luqadda ay ku hadli jireen dadkii loogu yimid dhulkan ee Aborigine-ka markay reer Yurub yimaadeen Australia ayay la yaabeen xayawaankan waxayna weydiiyeen bulshadii ay ugu imaadeen dhulkan magaca xayawaankan waxayna ugu warceliyeen kangaroo oo macnaheedu noqonayso ma garanayno dadka Aborigine-ka oo ah dadka leh dhulkan waxay yimaadeen Australia qiyaastii 50,000 oo sano ka hor waxaana laga yaabaa inay ka soo safreen Asia Australia dadkeedu waxay gaarayaan 24 milyan waana wadanka ugu badan oo ay ku nool yihiin dad kala gedisan guud ahaan caalamka dadka asaliga ah waa 2.5% tirada guud ee Australia afar meelooda meel dadka Australiaanka ahi waxay ku dhasheen dibadda waxayna ka kala yimaadeen in ka badan 200 oo wadan kala duwanaantaasi waxay siisaa dadka Australia caqiidooyin iyo dhaqamo kala duwan Australia xiriirka ay la leedahay Ingiriiska waxa uu sii noqonayaa gabaabsi laakiin saameynta Ingiriiska waxay weli ka muuqataa Australia dadka Aborigine-ka waxay la qabsadeen inay ku noolaadaan duruufaha adag ee ka jira bannaanada Australia dadka haatan ku dhaqan Australia waa reer Yurub oo ah dadka dhulkan ka xoogay Aborigine-ka iyo sidoo kale tiro isugu jirta Shiinays Vietnam iyo in ka badan 200 oo dal dadka kala yimid reer Yurub waxay u laayeen siyaabo kala gedisan dadkii dhulkan loogu yimid oo ah Aborigine-ka haatan waxaa ka haray dadkii ku noolaa dhulkan 239,000 oo Aborigine ah oo ku nool bannaanada saxaraha Australia halka intii kala birta la soo mariyay waqtiga uu bilowga ahaa gumeysiga Ingiriisku
1606 baarayaal reer Holland ah ayaa gaaray xeebaha Australia, waxayna u bixiyeen New Holland. Ingiriiskuna wuxuu bilaabay inuu halkaas dego 1788. dadkii uu keenay Ingiriisku ayaa ahaa dambiilayaal maara looga waayay gudaha Ingiriiska si ay ugu noolaadaan Australia xabsi ahaan. sidoo kale waxaa la keeni jiray Australia dadka ka soo horjeeda gumeysiga Ingiriiska ee daafaha caalamka. muddo kooban dadka cusubi waxay si nabad ah ula noolaayeen dadka Aborigine-ka, laakiin wax yar kadib dagaal ayaa ka dhex bilowday cidda leh dhulka iyo dadkii uu keenay Ingiriisku, waxaana bilowday baabi'intii Aborigine-ka. sanadkii 1851 Australia ayaa laga helay dahab aad u weyn, waxaana sanadkaa loogu yeeraa u kala orodkii dahabka ee dhulka cusub. helitaanka dahabkan waxay keentay kumanaan kun oo muhaajiriin cusub ah oo ka soo degaya xeebaha Australia. 1859 lix gumeysi oo kala duwan ayaa jiray. sanadihii 1901 gumeystayaashani waxay ku biireen inay samaystaan ururka barwaaqo sooranka oo ilaa haatan xubnaha ugu waaweyn ururkan ay ka mid tahay Australia. dhaqaalaha Australia waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn caalamka, waxayna xubin ka tahay ururka G20 oo ah wadamada ugu dhaqaalaha badan caalamka. Australia meelaha ugu badan ee ganacsiga la sameeyo waa Japan, Shiinaha, Mareykanka, Koonfurta Korea iyo New Zealand. waana mid ka mid ah kuwa ugu badan ee iibgeeya galleyda, dhogorta, birta iyo macdanta iyo dahabka. waxay kaloo dhoofisaa Australia gaaska dabiiciga ah iyo dhuxusha. Australia waxyaalaha ay dibadda u dhoofiso waxay gaarayaan hanti dhan 200 oo bilyan. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan.